asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhawaa saaxiibayaal shabakada samdami magacii waa cabdibaas xasan nuur waxaan ahay aasaasaha akademiyada samdami insha allah maanta waxaa qaadan doonaa cashirkeeni sideedaad ee koorskeeni aan ku barnaynay computer accounting gaar ahaan softwarekeena quickbookska insha allah maanta cashirkeena waxaa ka leenahay hal ujeedo halkaas ujeedo waxay tahay purchasing new fixed asset يعني markii aad soo gadanayno fixed asset waxaa loo yaqaanaa hantida maguurtada okay tusaale ahaan hantida maguurtada waxaa kamid ah dhulka oo galetood guryaha oo galetood kuwaas waxaa loo yaqaanaa hantida maguurtada marka waxaan rabnaa inaan maanta fixed asset aad soo gadano tusaale ahaan yani companygeena ama dukaankeena wuxuu iibsaday dhul cusub oo iibsaday soo dhulkaas cusub markuu iibsaday waxaan rabnaa inaanu gelino ama aan ku diiwaan gelino softwarekeena quickbookska marka saaxiibayaal kusoo dhawaada cashirkeena اوكي انت aan gudbin qaybta barnaamijka cashirkeena marka hore waxaa muhiim ah inaad ogaatid yani markii aad soo iibsanaysid yani dhul ama fixed asset aad soo iibsanaysid yani saameyn noocee ay ku yeelanaysaa akoonadaada tan koowaad waxay tahay cash account mid kamid ah akoonada cashka ama Salaam Bank ahaado ama Dahabshiil ahaado ama cashka caadi gacan dukaan ku yaalaado way yaraanaysaa sababtoo waxay tahay dukaankaaga lacag ayaa ka qaatay oo waxba ku soo iibsatay markii aad lacagta aad meesha ka qaado way yaraanaysaa Soomaaliya soo galatood fixed asset kaaga yani wuu badan doonaa okay fixed asset yani akoon cusub aad samaysmi doona oo waxa soo iibsatay hadii dhul uu yahay hadii wax kale uu yahay akoonkaas lacag ku doonto okay soo galatood assetka guud ma saameynayso asset guud sidiisu ahaan doona okay يعني total asset ka ma saameynayso waxay saameyn doontaa kaliya labada akoon mid kamid ah akoonada cashka ah iyo fixed asset akoon oo aad samaysmi doono okay softwarekeena soo furnayna markii asana u soo furno softwarekeena waxaa teganaa company waxaan kasii dooran doonaa make general journal entries marka washaan oo noo soo baxo shaashada network iska leenahay meeshaan transaction entry number kan sigaas gelinayo automatic way okay meeshaan taariikhda gelinaysa halkan waxaa gelinaysaa okay meeshaan waxaa gelinaysaa yani waxa aad soo iibsatay magacooda aad gelinaysaa okay tusaale ahaan dhul hadii uu yahay ama guri uu yahay ama waxa soo iibsatay gelinaysaa okay okay aniga hadda waxaan ku qoran tusaale dhul banaan iska qornaa adiga waxa rabtaa ku qori kartaa okay marka inta leeda okay wuxuu ku leeyahay dhul banaan is not account list ku jiro dhul banaan maxaa okay hadda baran leedahay set up okay meeshaan marka shaydan lista ku soo bixayso waxaa kasii dooran doontaa halkay qoran tahay fixed asset okay meeshaan qoran tahay fixed asset ayaa ku dhufanaysaa okay continue aa leedahay wax ma keenid garanaysaa misaasa ku save gareena ku leeyahay saas ugu save gareeyaa leedahay hadirtaan dhul banaan uu barto okay dhulka lacagta aad ku soo iibisay aad gelinaysaa okay ana tusaalahan waxaa iska leenahay $500 ku soo iibin halkaan waxaa gelinaysaa akoonka lacagta aad ka bixinaysid okay haddii cash caadi aad ka bixinaysid oo gacanta aad cash caadi qofka daasiis cash on hand leedaysa soo kalatood haddii aad Salaam Bank ama Dahabshiil Bank lacag ugu jirto aad u bixsan lacagta akoonka ka bixsan aad gelinaysaa okay anagu tusaalahan waxaan iska leenahay Salaam Bank okay uu yaqaan Salaam Bank okay 500 inta 500 aad gelinay totalku waxa la 500 inaadaan marka waxaa rabaa reports inaad soo inta transaction ka sameeyay sababtoo waxaa rabaa aniga waxii in qlaan qaab oo si tafsiir meel kasta saameynaysa sida aan soo rabo okay balance sheet nagu dhufo balance sheet markaan ku dhufo meeshaan waxa u jeedaa Salaam Bank waxaan ugu jirto okay $10 bis ugu jirto Salaam Bank okay Salaam Bank waa iska raafeen Dahabshiil laga bixi doona okay meeshaan yani waa u jeedaa wax fixed asset meeshaan ku qoran fixed asset in soo gal doona tan kale tad waxay tahay total asset keena 5270 kan misbedeli doonto okay sideedii ahaan doonta meeshaan hal fixed asset soo gali doono meeshaan yani aad soonaan Salaam Bank yani lacag ku jirto $10 bis ku jirto waa iska raafeen Dahabshiil laga bixinayna lacag ku jirto $10 marka kan hoos iska dhig Salaam Bank iska titir waxaa noo qortaa Dahabshiil noo qoran okay Dahabshiil 500 okay aka bixinayna marka Dahabshiil 500 kuna nugu jirto 500 aka bixin 500 in lagu hartarabna dhul banaan 500 in gasho safe and close noole okay hadartaan transaction ki waa sameeyna waxaa taginaa marka reports taginaa si ay soo saameynta yeelatay company financial kadibna waxaa kusii dhufan doontaa balance sheet halkan u jeedaa Dahabshiil akoonkeena 500 ka baxday okay 500 bis aad ku hartay sidoo kale tood meeshaan waxaa soo galay oo sadaq fiirso fixed asset hoosteeda waxaa soo gashay dhul banaan soo gashay oo 500 lagu fadhiyo
sidoo kale total assetkeena ma isbedelin okay 5270 wahay 5270 ilaa hadda sidii weeye marka waxaan rajeynayaa inay fahanteen cashirkeena sideedaad halkaas waxaa ku eg cashirkeena sideedaad fadlan haddii aad muuqaalka dhamaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto waa cabdibaasit xasan nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon inta ala tabin subxaana rabbika rabbil cizzati camaa yasifuuna wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin